waliba geeka magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bay hadiiray huban ku dararta dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ay ku mid yihiin Abdullaahi Maxamed Aadan oo kamaga dheer Abdullaahi Salaamo oo ay gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka UK iyo Farhaan Hidiga oo soo qabilsan wacyigelinta ciidamada qaranka Soomaaliyeed walina wafdiga iyo sidiir waxaan ku dhawaayana garoonka Shaatigadeed International Airport ee magaalada Baydhabo oo soo koray wasiirka warfaafinta dawladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya uga hasan walina intaas kureeda wafdiga la hangalbiyay xarunta madaxtooyada maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya magaalada Baydhabo oo kulamo la gaadhadan kusamaga madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Maxamed Xasan Faqi iyo wasiiro hilabaano ka tirsan dawladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya kulanka kureeda ya waliba uu ku weydiinay ujeedkii handiiray magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bay Abdullaahi Maxamed Aadan iyo Farhaan Hidiga hadaba waanu yooni ku warbiyayaan hadiiruka magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bay ujeedkayga ugu weyn wuxuu ahaa shalay baan go'aanka aan la gaadhnay inaan waqti anaguna hayn aan Baydhabo nimaadno wasiirka warfaafinta iyo wacyigelinta ee Koonfur Galbeed saaxiibkay Mr. Ugaas ayaa martiqaad ka fidiyay iyo dawladda oo dhan sida baan ku nimidnay laba cishaan la joogeynaa inaan anigoo xilka cusub la ii magacaabay inaan Baydhabo Janaay ka bilaabo ololahayga ayaan go'aan ku gaaray oo ku faraxsanahay marka waxa weeyaan wax walba oo qurux badan waxa laga bilaabaa meesha ugu haboon marka Soomaali oo dhan meesha ugu haboon ee Soomaali ay wada degto ee reebel iyo hebel aan kala lahayn waa Baydhabo Janaay marka waxa weeyaan maadaama jannada wixii fiican lagu magacaabo oo jannadii inaan ka bilaawno waana ku faraxsanahay ujeedada ay keentay waa sida waana ku soo noqon doonaa kama dhamaanayo Baydhabo Janaay iyo quruxdan iyo haybadan ilaahay runtii waxaan hadda joognaa xarunta madaxtooyada waxaan ka mahadnaqayaa sida quruxda badan ana loogu soo dhaweeyay airportka oo dawladda oo dhan iyo media wada socda ay noogu soo dhaweeyeen ma aha mid aan looga doono ujeedkeenu waxa weeye isku xirka khaasatan aniga isku xirka jaaliyadaha dibadda iyo maamulka Koonfur Galbeed muddada aan joogi doono oo cayiman waxaan rabnaa shacabka Koonfur Galbeed ku dhaqan khaasatan caasimadda inaan la wadaagno waxyaabo fara badan waxaan jecelnahay runtii inaan wax yar ka taabto dhaqanka wanaaga iyo Soomaalinimada iyo taariikh diimeedka ay ku caan yihiin maamulka Koonfur Galbeed khaasatan shacabka Koonfur Galbeed iyo caasimadda Baydhabo Janaay runtii waxa farxad iyo sharaf iyo ciidan noo ah in si aan kala har lahayn oo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan ay mafalayaan ay nagu soo dhaweeyeen runtii walaalahan Koonfur Galbeed anigoo runtii aqoon hore u leh magaalada oo ugu cusbayn fortunately walaalkeen Farhaan Hidig oo markii ugu horeysay sagana yimid waxaan runtii caawa uu barnaamij dheer ku lahaan doonaa TV-ga saaxiibkeen sidaan ka warayno Koonfur Galbeed runtii walaalkii Farhaan Hidig runtii kama sheekeyn karo masla sanadari masarage TV-ga dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya Baydhabo